الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشركي لح يا صدنات يا كتاب كيني عدة صابرين وذخيرة شاكرين. طيب وحان كجرني اون هالكان كبلابين هذا ولي قيبه شكرك قيب كلا او ليراهدو الوسائل المعينة على شكر النعم. وسائل maxaa igu caawinaya inaan ilaahay subxaanahu watacaala aan ku shukriyo. wasaa'il waxyaaba gacan igu siinayaa ma jiraan wey. waxaa ka mid a nacam haway jiraan. kow, annadar ila ahli alfaaqati walbalaa, yacni dadka dhibaatada ku dhacday bal inaad fiiriso, dadka jiran fiiri, dadka dhibaataysan fiiri. famin dalika yuujibu ixtiraama nicma. markaad fiiriso dadkaas waxay keenaysaa inaad nicmada ilaahay ku siiye aad adigu ixtiraamto, wacadami ixtiqaara inaadan xaqirin ooda yaraysanin. walidaalika rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi idaa nadara axadukum ilaa man huwa fudila calayhi fi lmaali, yani qofkii lagaa fadilay markaad fiiriso oo kaa sarreeya, yani xooluu kaa badan yahay, abuurkii kale iyo quruxdii iyo fulaankii iyo caafimaadii, waxyaabo badan buu ruuxani maalan kaa badan yahay. waxaad fiirisaa buu yidhi ilaa man huwa asfalu mink, yacni qof kaa hooseeya fiiri, kan kaa sarreeya fiirina ka kaa hooseeya fiiri. maxaa jira adigana kuwa badan oo lagaa fadilay baa jira. marka waa xadiidka imaamu bukhaari iyo muslim ay soo saareen. imaamu nawowi ayaa wuxuu yidhi xadiidkan tafsiirkiisa culimadii uu kasoo guuriyey ibnu jariir iyo keyrkii baa waxaa lagu fasiray xadiithun, wuxuu yihi jaamicun lianwaaci alkhayr. xadiidkan waa xadiid khayrka qaybihiisa dhan baa ka muuqanaya. insaanku markuu binu aadamku arko qof isaga laga fadilay adduunkan, naftiisu waxay dalbaysaa oy doonaysaa sida qofkaas oo kale. ayib qofkaas oo kale wuxuu yaraysanayaa nicamta ilaahay siiyey, adiga way kula yaraan. ayib wuxuu marka ku dadaalayaa inuu ziyaadsado si uu qofka ka sarreeya u gaadho. qof xoolo badan, anigana waa inaan guri qurux badan buu dhistay, baabuur buu wataa, kanuu leeyahay, marka wuxuu leeyahay xoolo badan buu leeyahay, waa taajir, anigana saasoo kale inaan noqdaan rabaa. naftiisu halkaas u soconaysaa. ayib hada huwa almawjuudu fi gaalib innaas. dadka intooda badan waa arrimahaasi waa lagu arkaa oo way joogaan. laakiin waxaa la yidhaha haddii uu fiiriyo qofku adduunka ilaa man huwa duunahu fiiha, dadka kaa hooseeya, kuwa kaa tabar daran, kuwa kaa caafimaad daran, kuwa wax walba kaa hooseeya, markaasaa waxaa usoo baxaya nicmada ilaahay uu kuu galay baa adiga kuu soo baxaysa, waanad ku shukrinaysaa. tawaaduc iyo ficil khayr buuna qofku marka iyada ah yuu ka qaadanaya. marka waxaa la rabaa mar walba cidda kaa hooseysa fiiri, cidda kaa sarreysa ha ku mashquulin. waxaa ka mid a wasaaisha iyo waxyaabaha gacanta kugu siin inaad noqoto shaakir ilaahay. waxaa ka mid a inaad ogaato macrifa inuu qofku isdhigo oo kale addoon laleeyahay oo kale inaad iska soo qaado. waxaa jira addoomaa waagii hore jiri jiray, sayidkiisaa iska lahaa, waa iibsadaa, waa gataa, wuu ku adeegtaa, waxba gooni uma leh, xoolihiisa camal bay ka mid ahaayeen. marka sidaasoo kale adiguna waxaa tahay addoon ilaahay baa tahay. waxaad ogaataa waxaan aad gacanta ku haysa cala alitlaaq ilaahay baa iska leh, laakiin adiga gacantaada unbaa la dhigay, waana maxdu cataa baa la yidhaahdaayo, yacni waa iska siin ilaahay iska kaasiiyey. maxaa jira jannadii baaba waxaa la yidhi, jannada maxaa ka qaalisan? jannadii baa la yidhi camal aad idinku samayseen ku geli maysaan, inuu ilaahay raxmadiisa idin siiyo ma ogi. raxmadda ilaahay uu ku siiyo unbaa janno lagu galaayo, camal adigu aad samaysay janno laguma galo. saxiixaynka waxaa ku sugan bukhaari iyo muslim, rasuulka sala allahu calay wasalam inuu habeenkii taagnaan jiray ilaa goomadihiisu ay ka bararaan. arrintaas waa la weydiiyey oo waxaa la yidhi adigoo ilaahayba waqad gafara allahu laka maa taqadama min dambika wamaa ta'akhar, dunuubtaadii oo dhanba isagoo alla kuu dhaafay, maxaad isu daalin ood u rafaadaysaa? wuxuu yihi rasuulku sala allahu calay wasalam afalaa akuuna cabdan shakuuran, oo miyaana anigu haddaba noqonaynin addoon ilaahay ku shukriyaa kullu maa facalahu allahu tacaala bi, wuxuu ilaahay ii sameeyey oo dhan, oo min alistifaa, doorashada ilaahay uu doortay oo nebinimada loo doortay, hidaayada iyo hanuunka la siiyey, makfirada dembigiisa oo dhan la dhaafay, kii hore iyo kii dambe, waa maxdu cataa. waa ilaahay baa iska siiyey cataa, yacnaha siismo
la barax tira weeye oon waxba lagu iibsanin miinan mudnayntaasi tastaxiqu alxamda washukr in ilaahay lagu xamdiyo in alla loogu shukriyo miina mudnayn buuri. waxaa ka mid a alintifaacu binicami wa cadami nukriha, yani in lagu intifaaco nimcada ilaahay ku siiyey waa lagu intifaaca, lama inkiro, waa in lakaa muuqato. rasuulku wuxuu yihi kuluu washrabu, war wax cuna oo wax caba oo sadaqaysta idinkoon bakhayl iyo israaf midna idinku jirin. fa ina allaha yuxibu an yara athara nicmatihi calaa cabdi, ilaahay wuu jecel yahay inuu arko nicmada uu qofku u nicmeeyey uu dushiisa ka arko. hadduu alla wax ku siiyo, guri fiican inaad degto, baabuur fiican inaad qaadato, maaragtay nolol fiican inay kaa muuqato, reerkaaga inaad ugu nimcayso ood biilkooda iyo aad wax ku filan aad siiso, yani inuu ilaahay kugu arko nicamta uu kuu nicmeeyey dushaada laga arko waa wax fiican, waana xadiis saxiixa. allahuma ajcalna min ashaakiriina الصابرين والله أعلم.